بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن ميل كستا oo naga daawanaysaan ama aad naga maqlaysaan akhyaarta ina daawanaysa ama ina dhageysanaysay halkani waa wariyaha.com oo barnaamijyadii kala gedisnaa ee aan maalmahan ba idin soo gudbinaynay mid kamid ah ayaan maantana idin haynaa maalmahan waxaan ka hadlaynay barnaamijyo ku saabsan xagga codka laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa bal xagga sawirada xagga muuqaaladuna way noo soo socdaan haddii ilaahay ka raali noqdo hortiin waxaa ka muuqda afar dhalinyaro ah afartu waa saxafiyiin haddii dhinaca bidix aan ka bilaabo ugaas ninka ku xiga waa idaaja ninka ku xiga waa faysal ninka kusii xigana waa liibaan marka maanta waxaan rabnaa inaan halkan idinku baro ama u faa'iideeyo inta aan aqoon inta taqaan waaba taqaanaay afartan in marka indhahooda fiiriso masawirkaas saddexdan indhahooda waa caadi xoogaa cadcadaan ha isaga jiro laakiin waa flashka kaamirada biligteeda ayaa haya laakiin saaxiibkeen liibaan waxaa moodaa in indhihiisa ay ku jiraan gaduud saa'id ah marka indhahoodan saddexda kale loo fiiriyo waa uu ka duwan yahay marka saas cadaalad ma ahan in ragga kale indhahooda caadi iska noqdaan oo filimka si fiican ugu soo baxeen muuqaalka liibaan indhihiisa ay gaduud yihiin marka qaladka waxaa keenaya waxa weeye flashka kaamirada inta badan mararka qaar saas sameeya marka laakiin waa laga bi'in karaa marka halkan waxaan rabaa warkii aan idinku badinin sidaan hore idinku sheegayna loo soona weydiiyey wariyaha.com email loo soo diray loo weydiiyey ayaan rabaa intiina ay ciladani kale oo ay haysato ama ay hore u qabsatay ama ay qabsan doonto haddii ilaahay ka raali noqdo inaan baro qaabka ay indhahaas gaduudka ah ay u xallin karaan marka la yiraahdo in film aan yiraahdo masawir wax laga bedelo dhowr program ama software la isticmaalaa photoshop kamid ah oo dad badan aan filayna yaqaanaan waxaa kamid ah barnaamij la yiraahdo game oo hadda midkaan isticmaalayo computerka photoshop iguma jiro laakiin game baa igu jira asagan ku tusaya waa free google-ka tagaysa waxaad ku qoraysaa game deetana sidaas uu kugu soo baxaya waxaan jeclahay xataa inaan uga faa'iideeyo qofkii raba inuu la soo dego barnaamijkaasi oo si fudud waxyaabo badan ayaa lagu qabsan karaa waliba wuxuu si fiican u anfacayaa dadka maaragtay aroosyada wax ka bedela wuxuu kaloo anfacayaa dadka kale ee isticmaala paintingka ama wax sawira wuxuu kaloo anfaci karaa qofka raba inuu facebookiisa banner qurux badan ama timeline qurux badan u samaysto wuxuu kaloo anfaci karaa saxafiyiinta oo bannerada website-yada lagu sameeyo waxaasoo dhan waxaa lagu samayn karaa barnaamijkan waa free wax lacaga ma ahan kaliya waxaad samaynaysaa internetka kici deetana google ku qorto waxaad ku qoraysaa game kadibna halkaasuu kaaga soo baxaya website-kooda ku toos kugu soo baxaya kaliya ku siinaysaa wakaa website-kooda kusoo baxay kadibna halkaasaad download ka leedahay waa la soo degaysaa si toosa usoo dejisanaysaa koleybana iska akhri intaan soo dejin noocyo badan uu leeyahay marka kadibna la soo deg kadibna ku tababaro waxyaabo badan ku samaysan kartaa bannerada flyerada koleyba anigu ii kacsan yahay uu maaragtay computerka waa igu jira waa kana nooca qaabkaas uu egyahay markaad google ku qoratid oo download soo dhahdid oo computerka ku shubatid kadibna maaragtay waxa ku soo furmi doona halkaas ku soo fuuli doona halkaas ama desktop-kaaga ayuu soo fuuli doona deetana computerka marka aad ku shubaysaa marka kuu soo dego oo aad kiciso waxa ku soo furmi doona qaanadahan oo kale midaan oo ah meeshii qalabkii aad wax ku samaysan lahayd ay ku yaalaan midaan oo ah midda aad isticmaalayso oo ah meesha aad wax ku bedelayso ama sawir ha ahaado ama qoraal ha ahaato wax ku qoraysid iyo qaybtan kale oo ah qayb kale oo iyadana loo isticmaalo qurxinta markaad soo kiciso file ayaad leedahay open
masawirka raggan wuxuu ii saaran yahay desktopku ii saaran yahay marka waxaad ku dhufanaysaa desktopka tagaysaa waxa igu qornaa aan iska hubiyo ayaa igu qoran kan muxuu leeyahay waa internetkii marka kusoo dhufo kan waxay xagga u leexiso qaybtaas wuxuu leeyahay qayb preview ah oo waxaad soo qaadayso intaadan soo qaadin ka hor aad ka arkay saddex aftooda kuwaasa deetana waxaa leedahay open markuu furo convert deh deetana halkaan kuu soo dhigayaa marka afartii asxaabta ahayd oo kuwaana sawirkoodii sawirada kale waa iska caadi laakiin liiban weli indhihiisa marka waxay inaad soo weynaysano qaybtan kore idin sheegay in qalabka uu idin yaallo waxaa ku jirta qaybtaas oo zooming qaybtaas halkaas ayadan kali ku siinayaa deetana sawirkan kor tagayaa sida ujeedaan balas ayaa meesha kusoo sawirmaysa deetana sawirka korkiisaad kali ku siinaysaa sawirka wuu weynaanayaa si indhahooda si fiican loogu arko haddaan rabana mar kale kusii dhufo hal mar kale haddaa si fiican loogu jeedaa markii sidaas aad afartoodii indhahoodii la arko liibaan ayaan rabnaa annagu inaan wax ka bedelno marka waxaad tagaysaa qaybtaas ay ku qoran tahay maaragtay select ku qoran tahay iyadaad ku dhufanaysaa deetana markaad iyada ay dooran tahay waxaad imaanaysaa halkaas isha korkeeda meesha isha ay ka gaduudan tahay ayaad calaamad waxaad saaraysaa ayaad dooranaysaa highlight haddii aysan la ekaanin xogaa yar xagga u leexi aadi meesha waxaan rabnaa qaybta guduudka bas inaan helno waa kaa kadib markaad hal il doorato isha kale ma aadi kartid adigoon maaragtay qaybtaas select aad imaanin halkaas qaybtaas labadaas guud ku qoran tahay add to the current selection meeshay ku qoran tahay click c kadib marka tan sideeday ku ahaanaysaa tan kala tagaysaa gowaabintii oo kalaan isha meesha guduudka ah haddii aysan maaragtay ku aadanin waad kulle maaragtay saasaad u fiirsanaysaa qaybta guduudka haddaan si fiican uga aadi dhinaca kale mar kasta oo dooranaysid waxa kusoo baxaysa calaamadaas yartaa oo cheat marka inay isha dhanna fuushano lama rabo qaybta waxaan dooranaynaa guduud ku jiro hadda labadiis indhood waa dooranay qaybta labadii guduudka ahaa kadib markaas waxaa imaanaysaa qaybtaas ay kugu qoran tahay maaragtay qalabku file iyo date iyo selection iyo select iyo kugu qoran yihiin view image iyo layer iyo waxyaabahaas ku qoran colors tools filters marka qaybta filterska meeshay ku qoran tahay enhance kadibna hoos u dhaadhac waxaad tagtaa meeshay ku qoran tahay red eye removal click ku sii waxaa kusoo baxayaa qaybtaas maaragtay oo preview waxaad ka arkayso xaggan keeno marka muujidaa indhihiisii keliya oo guduuda noo soo muuqday waa kuwaas marka haddii aan meeshaan ay ku qoran tahay strisherka haddii aan xagga u jiido qaybtan aan u jiido waa sii guduudinay waxaan malin halkaas inaa isha ku hayst indhaha ku hayst haddii aan dhimo aan xagga u dhimana oo hadda meesha aan macna xagga aan u badiyana dhinacaan u badiyo 100% haddaan geeyo liibaan indhihiisii guduudka waa ka baxay si fiican u jeedaa malan haddii zero aan ka dhigo waa guduuda ku jira haddii aan xaggaan usoo badiyo oon 100 geeyo xisaabtaas meesha xisaabta ku qoran tahay 100 aan geeyo guduudka wax ka baxay markaas ka bacdina waxaan leeyahay okay kadibna meeshay ku qoran tahay ku laabaneynaa select kadibna waxaan leeyahay none kadibna waxaan marka
hadda marka waxa moodaa indhihii liibaan iyo indhihii saddexda kale waa isku ekaadeen ma ujeedaa dabcan haddii marka zoomkii aan ku celiyo zoom aan leeyahay waxaan leeyahay markaad zoom ku dhufato haddii aadan control ka qaban plus marka control markaan qabto minus isku bedelay plustas control click sidiisa ku celi hadda marka afartoodii indhahoodii waa isku mid sidaan jeclahay sida dad badan aan u jeeday aan qiyaasa inay daawanayaan kadib markii aad indhihii sidoodii aad ka dhigto file aad tagaysaa waxaad leedahay save as kadibna desktopkaad ku save garaysanaysaa marka hadda waxaan rabaa inaan tuso bal labadii sawir markii hore oo sawirka intaana samaynin iyo markii dambe wax ka bedelan farqiga u dhaxeeya idinku cod u qaada markaan waxaa moodaa indhihiisa inuu la mid yahay asxaabta kale indhahooda sida ayaga caddaan ugu jiro oo ah sidaan hore baan kugu sheegay flashkii kaamirada ayaa isagana caddaankii ugu jiraa marka waxa saaid ku ahaa oo dheeraad ku ahaa waa gaduudkaas indhaha korka ka saarnaa sida ujeedaanba marka hadda waxaan filayaa in sawirkii uu normal yahay hadda meesha waxaa ka muuqda cadaalad in afartan caadi yihiin marka waxaan maleynayaa liibaan waa faraxsan yahay sidaa uu ku qanacsan yahay aan jeclahay image aad u fiican intaan dib dambe u kulmi doono sidaa iyo intaan ka tegin waxaan rabaa inaan laba mid idinka codsado in marka hore horta barnaamijka youtube-ka aad ka daawanaysaan barnaamijkan aad maaragtay subscribe dhahdaan midda labaadna suulka kore kan hoose ma rabo halaga qaleeyo suulka kore oo waa okay inaad marka haddii uu okay yahay hadduusan ahaynna hoos markaa waa imaanaysaa waa mahadsantihiin intaad dib dambe u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo booqo www.wariyaha.com midda kalena commentigan waa furan yahay wixii commenti halkaa